garsoorayaashu marka ay ka garnaqayaan arrimaha ay danaynayso xukuumaddu waxa loo yeeriyaa xukunka ay soo saarayaan kaasi oo lagu soo qoro xafiiska madaxweynaha waana sababta aad marar badan u maqashaan dacwad dhagaysigeedu socday oo loo ballansanaa 10 subaxnimo si lagu dhawaaqo iyo guurtida toona sidoo kalena waxa uu eryi karaa xilliga uu doono haddaba maxkamadda sare ee dalka shaqadeedu maxay tahay marka hore waa guddoonka guddida cadaaladda dalka oo maamusha dhammaan garsoorayaasha maxkamadaha marna waa maxkamadda sare oo dhageysata dacwadaha dadweynaha ee ka soo gudba maxkamadaha hoose waana goobta soo saarta go'aanka kama dambaysta ah mar kale waa maxkamadda cadaaladda oo dhageysata dacwadaha ka dhanka madaxda sare xisaanada leh dambiyada lagu soo oogo maxay yihiin guddida cadaaladda guddida cadaaladdu waa hay'adda qaabilsan magacaabista iyo isku beddelka garsoorayaasha waxna gudoomiyaha maxkamadda sare waxaana xubna ka laba garsoore oo maxkamadda sare ka socda xeer ilaaliyaha guud agaasimaha wasaaradda cadaaladda gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda laba xubnood oo golaha wakiilada ka socda laba guurtida nasiib darro 10 xubnood ee guddida cadaaladda 6 kamid ah waxa magacaaba madaxweynaha dalka waxaana taasi muujinaysaa in guddida cadaaladdu ay yihiin farac kamid ah madaxtooyada haddaba marka si guud loo eego 10kaasi dhinac ee ku lug leh arrimaha cadaaladda 8 kamid ah waa xubno kuraasta ugu fadhiya dekreeta madaxweyne waxay noqotay cadaaladda dalku mid ku jirta jeebka xukuumadda iyo xafiiska madaxweynaha sida iyana ku cad dastuurka Soomaaliland waxa uu ku nisbaynayaa dawladnimada ka jirta Soomaaliland inay ku dhisantay 3 dheerlaad kuwaas oo kala ah baarlamaanka oo qaabilsan sharci dejinta xukuumadda oo leh fulinta iyo garsoorka oo ay ku aroorto cadaaladdu kana madax bannaan dhinacyada kale haatan waxa madax u ah 3daasi waaxood laba kamid ah madaxweynaha iyo gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali taasi oo ay labadoodaba midayso ay qabiil oo ay u dheertahay saaxiibtinimada siyaasadeed taasi oo keentay isku milanka dhardaaradii dawladnimo waxaana ka dhaxeeya in kuraasta la isku ilaashado oo madaxweynuhu kursiga ku ilaaliyo gudoomiyaha maxkamadda sare maadaama uu sharci u leeyahay beddelka iyo magacaabista mid cusub halka gudoomiyuhuna uu isha ku haya cid kasta oo furata dacwad ka dhana madaxweynaha iyo eheladiisa hase yeeshee madaxweynuhu waa shakhsi fahansan qaabkii uga takhalusi lahaa miisaan kasta oo xakama u noqon kara taasi awgeedna waxa uu wasaaradda cadaaladda u dhiibtay wasiirka haatan ee cadaaladda oo ay ku egtahay shaqadiisu in loo diro ka qaybgalka siminaarada iyo xafladaha gaarka ah waxaase hawsha wasaaraddaasi si toos ah madaxweynaha ugaga mas'uula wiilka ay qaraabada dhow yihiin oo muddo dheerna ku noolaa aqalka madaxweynaha laguna magacaabo Cabdiraxmaan Musaabaqo kaasi oo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda isla markaana ku jira guddida cadaaladda ee dalka waxa iga xasuusina inaan wasiirka cadaaladdu kamid ahayn guddida cadaaladda taasi beddelkeeda waxa ku jira agaasima Cabdiraxmaan iyadoo uu dastuurku dhigayo inuu ku jiro halka agaasimaha wasiirka cadaaladdu garsoorayaashu marka ay ka garnaqayaan arrimaha ay danaynayso xukuumaddu waxa loo yeeriyaa xukunka ay soo saarayaan kaasi oo lagu soo qoro xafiiska madaxweynaha waana sababta aad marar badan u maqashaan dacwad dhagaysigeedu socday oo loo ballansanaa 10 subaxnimo si lagu dhawaaqay intaanay libdhadu soo bixin haddii ay isku dayaan inay ka dhagaadaygaan amarka xukuumadda waa garsoorayaasha ee waxa hortaala beddelkeeda oo ah inay ku waayaan xilka ay hayaan ama in loo bedelo tuulo aad uga durugsan deegaankooda oo aanay xamili karin taasi oo kaliftay inay badiba garsoorayaashu siiskooda isku casilaan waana nooc kamid ah cadaadiska ka dhex jira hay'adaha garsoorka Soomaaliland taasina waxay meesha ka saartay gabi ahaanba madax bannaanidii garsoorka arrintaasina waxay keentay in dad kale awoodda siyaasadda iyo dhaqaaluhu inay meel marsan karaan arrimaha ay doonaan halka ay meesha ka baxday xaq iyo xuquuqdii danyartu garyaqaanada ka dhexdooda maxkamadaha oo qaarkood aan la sheekaystay waxay xaqiijiyeen in culays badan la saaro xilliga ay galayaan kiisaska ay danaynayso xukuumaddu waxaana intaasi ku dareen in haddii ay ku adkaystaan inay dacwadaasi galaan in marka uu xukunku dhaco kadib in la bartilmaameedsado garyaqaankaasi ayna la kulmaan cadaadis nololeed tani waa sababta garyaqaano fara badani uga haajireen Soomaaliland qaar kalena waaba daawateen iyagoo ka tagay shaqadii ay shacabkooda u hayeen cadaaladii oo meesha ka baxday kadib markii ay isku dhex milmeen hay'adihii garsoorka iyo fulinta isla markaana ay maxkamadihii gacanta u galeen xukuumadda waxa uu qodobkani xaaraan ka dhigaya qabashada qof aan gacanta kula jirin fal dambiyeed ama aan loo haysan ogolaansho garsoore taas beddelkeeda dadka la qabto 99% maaha kuwa soo qabashadoodu ay waafaqsan tahay sifaha sharciga waana kuwa loo adeegsaday amar awood sheegasho oo baalmarsan dastuurka loo yaqaan araariyada oo laga leexiyo sifihii loo aasaasay ayaa saxda dhexe dadka guryaha kala baxa waxaana marar badan dhacda dhibaato dadka naftooda iyo maalkoodaba soo gaadha xilligan oo kale Soomaaliland waa dhinacyo badan gudcur ay ka gashay haddana godadka ugu madow kan ayaa kamid ah cadaaladda iyo garsoorka